wasiirka wasaaradda Maliyada Puntland iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa gaaray magaalada Tukaraq oo ka tirsan gobolka Sool waxaana si aad halkaas ugu soo dhaweeyay mas'uuliyiinta dawladda Puntland odayaasha dhaqanka haweenka iyo bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan wasiirka Maliyada Puntland ayaa booqashadiisa waxa uu ku weheliyay wasiir ku-xigeenka dekedaha wasiir ku-xigeenka dakhliga agaasimayaasha wasaaradda Maliyada qaybo kamida booqashada wasiirka Maliyada Puntland Cabdullaahi Sheekh Axmed ee magaalada Tukaraq oo ka tirsan gobolka Sool ayaa qayb ka ah dhagax dhiga dhismaha cusub ee kastamka canshuuraha maaliyadda oo halkaasi laga hirgelin doono wasiirka Maliyada Puntland iyo wafdigu uu hogaaminayay inta ay ku sugnaayeen magaalada Tukaraq oo ka tirsan gobolka Sool waxa ay la kulmeen bulshada deegaanka waxaana wasiirku ka dhageystay baahiyaha kala duwan ee bulshada deegaanku ay qabaan kuwaas oo dhammaan dawladda ay u soo gudbiyeen iyo in ay rajo ka qabaan in wax looga qabto waxaana ay soo dhaweeyeen kastamka cusub ee dhismihiisa laga hirgelinayo magaalada Tukaraq iskuul baan naloo dhisay oo aan ini ka codsanaya sankatiri carruurtu markay iskuulka ka baxo waxaan u dhigi jirnay lasaano boosaaso gaalkacyo hargeysa garowe dhulkaasaan loo qaybin jiray sankatiri baan naloo dhisay waxaa laydinada wax ku qarsaneed waxba lagama qarsado waxbayni ka qarsan mayno macallimiintii wax noogu dhigi lahayd qaarkoodii baan weynay wasiirka Maliyada Puntland oo la hadlay bulshada deegaanka ee Tukaraq ayaa sheegay in dhammaan baahiyaha ay u soo gudbiyeen dawladda uu kula laaban doono dawladda dhexe isla markaasina uu rajaynayo in si degdeg ah wax looga qabto baahiyaha ay tabayaan dadka deegaanka Tukaraq wasiirka Maliyada Puntland iyo mas'uuliyiintii kale ee la socday ayaa dhagax dhigay xarunta cusub ee canshuuraha wasaaradda Maliyadda ee magaalada Tukaraq bulshada reer Tukaraq waa in ay garab istaagaan dhismaha xaruntan cusub ee canshuuraha maaliyadda sidaas waxa yiri wasiir ku-xigeenka dekedaha gaadiidka badda iyo la dagaalanka burcadbadeeda dawladda Puntland waxaa la Tukaraq fursad weyn baad maanta hesheen waxaan rabaa inaad ka qayb qaadataan waxaan loo qabto kaliya lagu qabsado waxaan rabaa inaad qaybtida ka gashaan iyadoo wasiirku ilaahay u dhigay wasaaradda maaliyadda ay ku maasantahay hawsha kastabkeeda balaarinayso idinkuna waxaan idinka rabaa inaad xooggiina iyo muxuu ahaa maalkiina aad ka qayb qaadataan halku dhiga madaxweyne gaas ee isku tashi waa mid ay meelmarinteeda ay ka go'an tahay xukuumadda sida halkaas uu ka sheegay wasiirka Maliyada Puntland oo dhagax dhigay xaruntaasi cusub ballanqaadkii iyo furtaankii maalmood waa arkayseen wasaaradda maaliyadda ee maxaan ku sheegaa xarunta ee Garowe halku dhagaas ah isku tashiga ayaan wali ay ka mid tahay tani gaalkacyo iyo meelo badanna waa ka dhisnay saasaan u soconaa adeega wasaaradda ayaanu ka dhisnaa sidaanu hore u sheegnay waana diyaar waa u haynaa lagu dhisayay oo lagu maalgelinayay waxaan oo aad baanu annaguna isaga yareynaa u beekhaaminaa magaalada Tukaraq horey waxa uga jiray kastam canshuuraha wasaaradda Maliyada Puntland balse xaruntan cusub uu dhagax dhigay wasiirka Maliyada Puntland ayaa qayb ka noqon doonta xarumaha cusub ee ku hawl jirto wasaaradda Maliyaddu in laga hirgeliyo dhammaan gobolada kala duwan ee dalka si kor loogu qaado canshuuraha kala duwan ee dawladda Puntland
xaruntan cusub ee laga hirgeliyay magaalada Tukaraq ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo dhawaan magaalada Garowe caasimadda Puntland laga hirgeliyay xarunta cusub ee Wasaaradda Maliyada dhismaheedii ugu horeeyay halkaas oo uu daah furay madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. wasaaradda maaliyadda ayaa waxay wada dardargelin ku aadan shaqooyinka wasaaradda in dhammaan gobolada oo dhan laga hirgeliyo si dakhliga dawladdu uu noqdo mid ka ballaaran. We know